بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، waxaan halkan hambalyo kaliya laaba uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku guuleystay doorashadii 13 November dalka ka dhacday. waxaanu leenahay hambalyo isaga iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. labadaba waxaanu leenahay hambalyo. waxa kaloon iyagana hambalyeynayaa labada xisbi mucaarid hawcid iyo wadani go'aankii geesinimada lahaa ee ka qaateen doorashadii dalka ka dhacday iyo aqbalaadda natiijadii ay komishiga doorashooyinka ku dhawaaqeen. inta haddaan ka gudbo, waxaan iyagana anigoo ku hadlayaa afka guddida kaambeynka ee gobolka Gabiley, afhayeenka guddida kaambeynka ee gobolka Gabiley, waxaan hambalyo kaliya laaba iyagana u dirayaa shacabweynaha ku nool gobolka Gabiley sida geesinimada leh ee sharafta leh ee qadarinta leh ee ay codkooda ugu muujiyeen xisbiga kulmiye. waxaan filayaa inaanay cidna caad ka saarnayn in codka ugu badan ee uu xisbiga kulmiye guusha ku hantay ay lahayd gobolka Gabiley. guud ahaan iyagoo xisbiga kulmiye taageerayaashiisu ay lahaayeen, haddana libintii ugu qiimaha badneed waxay ahayd gobolka Gabiley. gobolka Gabiley wuxuu muujiyay dareen wadaninimo leh, dareen halgan oo xisbiga, maadaama ay xisbiga kulmiye taageerayaashiisii hore ahaayeen, imikana waxay muujiyeen inay yihiin weli oo aanu halka kalsoonidii xisbiga aanay liicin. waxaana u muuqataa in guusha xisbiga kulmiye ay lahayd gobolka Florida ama gobolka Gabiley. sidoo kale waxaan iyagana hambalyeynayaa mas'uuliyiintii na garab taagnaa ee hiilii hooban la garab taagnaa oo ugu horeeyo mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale, oo haddii aanu na garab taagnayn oo aanu noo fududayn wax walba oo naga hor yimaada aanay guusha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley muuqateen. guushaana kolley waxaan aaminsanay inuu Sheekh Cabdicasiis amba wasiirka hore maaliyaddu kow ka ahaa. waxaan kaloo iyagana hambalyo kaliya laaba u dirayaa maayarka Gabiley Maxamed Amiin, oo isaguna ka mid ahaa halboolayaashii nagu garab istaagay inaynu guulaysano amba guddida kaambeynka ee gobolka garab taagnaa mar walba, iyo guddoomiyaha iyaga Dr. Cabdiweli iyo howlwadeenadii kale ee ugu horeeyay guddoomiyaha gobolku. dhammaantood waxay ahaayeen tiim isku xidhan, isku duuban, isku mida, isku hadafa, isku ujeeda. hadafkoodii iyo yoolkooduna wuxuu ahaa inaan xisbiga kulmiye keligii uu gobolka Gabiley codka qaato. tiina waa laga dhabeeyey, shacabkiina garab galayna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.